ma isku aragtay inuu wejigaaga noqdo casaan ama gaduud gaar ahaan dhabanada iyo foolka ma ka walwashay xaaladan oo mystery maxaa kugu sabay xaaladan sidee iskaga baabi'i kartaa haddaba si fudud ayaa muuqaalkan kugu sharxi doonaa waxyaabaha kugu sababay inuu wejigaaga noqdo casaan ama gaduud iyo sida ugu fudud ee iskaga baabi'i kartidba balse intuusan muuqaalka bilaabanin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like ii saarto sidoo kale aad la wadaagtid saaxiibadaada si ay ayagan ugu faa'iidaystaan ama aad u dirtid muuqaalkan qof aad is leedahay uu ka faa'iidi doonaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دواada dhamaan saaxiibayaal si aad muuqaalka hordhiciisa ka soo aragtayba muuqaalkan waxaa rabaa inaan ku sharxo wax loo yaqaano dhiig-garoorka oo ah inuu wejigaaga noqdo casaan ama gaduud dhiig-garoorka afka caafimaadka ahaan waxaa loo yaqaanaa rosacea haddaba waa maxay dhiig-garoorka ama waa maxay rosacea rosacea waxaa lagu qeexi karaa waa cudur ka mid ah cudurrada ku dhaca maqaarka gaar ahaan waa inuu caabuq ku yimaado maqaarka wejiga marka qofka markuu leeyahay cudurkan wuxuu isku arki karaa calaamadaha inflammationka ama calaamadaha caabuqa calaamadahaas waxaa ka mid ah number 1 meesha inay noqoto redness wax loo yaqaano oo ah casaan ama gaduud number 2 wuxuu isku arki karaa meesha inay yeelato wax loo yaqaano swallowing oo ah barar number 3 meesha wuxuu isku arki karaa ama qofka wejigiisa wuxuu ka dareemi doonaa hiita oo ah kuleel sidoo kale ugu dambeyn number 4 qofka wejigiisa wuxuu ka dareemi karaa xanuun gaar ahaan damqasho qofka markuu maqaarka wejigiisa uu taabto marka cudurkan rosacea ama waxa ku sheegnay dhiig-garoorka wuxuu ka mid yahay caabuqyada ku dhaca maqaarka waxaan filayaa inaan isla fahanay xanuunka loo yaqaan rosacea oo ah inuu caabuq ku dhaco maqaarka wejiga oo wejigaada inaad ku aragtid casaan iyo gaduud haddaba xanuunka loo yaqaan rosacea wuxuu wejiga kaga dhacaa 3 meelood number 2 wuxuu kaga dhacaa foolka number 2 wuxuu kaga dhacaa dhabanada number 3 wuxuu kaga dhacaa wax loo yaqaan garka ama jinka haddaba xanuunka loo yaqaan rosacea waxa loo qaybiyaa 4 qaybood qaybta koowaad waxa loo yaqaanaa ama waxa loo soo gaabsadaa ATR inta badan qaybtan waxay ku dhacdaa dhabanada marka haddii aad wejigaaga ku aragtid ama dhabanadaada ay noqdaan casaan ama guduud noocan ayaa qabtaa nooc labaad waxa loo yaqaanaa papulopustular rosacea noocan inta badan wuxuu og yahay sida finanka kale marka wejigaaga wuxuu ku sameysmayaa ama wejigaaga waxa ku arkaysaa finan yar yar oo gudguduud ah ama casaan ah nooca saddexaad waxa loo yaqaanaa ocular rosacea noocan inta badan waxa lagu gartaa in ishaada gaar ahaan hareeraha isha inay noqdaan casaan ama guduud nooca ugu dambeeya waxa loo yaqaanaa phimosis rosacea noocan inta badan waxa casaan lagu arkaa sanka iyo hareerihiisa waxaan u gudbi doonaa qaybta xigta oo ah maxaa sababo ama maxaa keeno cudurka loo yaqaan rosacea waxyaabaha keeno cudurkan ama waxyaabaha keeno inuu wejigaaga noqdo casaan ama gaduud inta badan lama yaqaan waa unknown balse waxaa jira waxyaabo loo yaqaan triggers oo laga yaabo inay kugu kiciyaan marka waxyaabaha kicin karo xaaladan waxaa ka mid ah number 1 qoraxda ama sanka wax loo yaqaan inta badan qoraxda waxaa la socdo ultrawaves ama UV wax loo yaqaan waxyaabahaas si muuqaalo badan aan ku soo sharxaybo waxaa laga yaabaa inay dhaawac gaarsiiyaan maqaarkaaga marka waxyaabaha ka mid ah in ay kugu kiciyaan wax loo yaqaan wejigaaga inuu casaan noqdo waxa ugu horeeya qoraxda sidoo kale number 2 waxaa kugu kici karo dawooyinka loo yaqaano hypertensive drugs ama dawooyinka loo yaqaano blood pressure medications dawooyinkan waa dawooyinka lagu daweeyo xanuunka dhiig-karka dawooyinka loo yaqaano hypertensionka qaabka ay ku keenayaan xanuunkan ayaa ah waxay dilation ku sameynayaan blood vessels oo la macno ah inay fidinayaan xididada dhiigga marka mar walba ay fidsamaan xididada dhiigga waxa badanayo dhiigga soo gaaraya wejiga marka waxa dhici karta in xaaladdan kugu dhacdo sidoo kale waxyaabaha kale ee kugu kici kara waxa ka mid ah wax loo yaqaan cosmetics oo ah waxyaabaha jirka lagu qurxiyo gaar ahaan dawooyinka ay ku jiraan kiimikooyinka badan oo loogu talagalay in lagu bedelo midabka maqaarka waxaan u gudbi doonaa qaybteen ugu muhiimsan muuqaalka oo ah sidee loo daaweeyaa wejiga casaanka ama gaduudka leh inta badan waxaa lagu daweeyaa dawooyinka loo yaqaan corticosteroids dawooyinkan waa dawooyinka lagu daweeyo caabuqyada jirka gaar ahaan caabuqyada maqaarka marka dawooyinkan waa dawooyin group ah ama dawooyin dhowr ah oo inta badan laga hortago caabuqyada ama inflammation wax loo yaqaan dawooyinkan corticosteroids kan ku sheegnay
laba qaybood ay inta badan noqdaan qayb oo dhiiqa ah ama qayb maqaarka la marsan karo iyo qayb afka laga qaadan karo oo sida kaniiniyada oo kale kuwa aan ku sheegnay topicalka ama dhiiqada ah waxaa ka mid ah dawada loo yaqaano Dermomax dawada shaashada ugu jeedid Dermomax waxay ka mid tahay dawooyinka ugu caansan ee lagu daweeyo wajiga casaanka leh sidoo kale waxaa jiro dawo kale oo loo isticmaalo ayadana oo loo yaqaano Rosacea ama Metronidazole labadan dawo waxay ka mid tahay dawooyinka dhiiqooyinka ah ama dawooyinka maqaarka la marsado ee lagu daweeyo casaanka wajiga sidoo kale dawooyinka kale ee afka laga qaadan karo ee kaniiniyada ah ee lagu daweeyo karo xanuunkan waxaa ka mid ah kaniiniga loo yaqaano Doxycycline iyo dawooyinka loo yaqaano Tetracycline labadan dawo waa laba kaniini oo u isticmaali kartid xanuunkan sidoo kale waxaa jiro qaabyo kale oo dabiici ah oo aad u daweey kartid xanuunkan waxaa ka mid ah in wajigaaga aad saartid barafka inta badan wuxuu ka qayb qaataa in uu dhiig roorka uu baabi'iyo ama dhiig socodka meesha inuu fududeeyo sidoo kale way jiri karaan qaabab kala duwan oo lagu daweey karo dhiig roorka oo dabiici ah adiga daawanaya muuqaalkan waxaan ka codsanaya haddii aad garanaysid in qodob ka mid ah ama qodobo badan nagula wadaagtid qaybta hoose ee faalada si aan ugu faa'iideysano aniga iyo dhammaan saaxiibada kaleba anigoo kaaga mahadcelinaya daawashadaada muuqaalkan ha iloobin fadlan inaad muuqaalkan like saarto sidoo kale aad la wadaagtid saaxiibadaada si aad u heshid fariimo caafimaad oo joogto ah fadlan ku soo biir channelka oo subscribe saar sidoo kale notification-ka furo ama gambaleelka si ay ku soo gaaraan dhammaan muuqaalada cusub السلام عليكم ورحمة الله وبركاته